markii guurkaas oo sameeyay gabadheeda haran baa taabtay iyo taabtay haran baa taabtay markii alla markay igu tiri ayaan u imid waxaan dhahay dirsanahay waa in isxal doornaa shan maalin ayaa laga joogaa kadib markii maalinimadii khamiista ahayd halkan uu ku nafbaxay Allah u naxariistay marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo loo yaqaanay Axmed Dawlo wallahi maalinta khamiista dhacday dhimashada Axmed aniga gabadh naagta islaantaas nafteeda maxkamadda la saarnay Cabdiraxmaan Mukhtaar Saalax waa aabaha dhalay wiilka ay iscaan shaqeyn gabadha ahna walaalka Allah u naxariistay Axmed Mukhtaar Saalax waxa uu sharaxayaa sidii ay wax u dhaceen iyo waxa ay ku qanci karaan xilligan wallahi aad xamaasadeeda ay kacsaneed laakiin meel waxaan ku jiray maxkamad ah mar walba waxa la dhahay telefoonka dami hadlin talii markii loo soo sheegay oo la yiri walaalkaaga ayaa hadda ruux baxay oo Axmed baa la yiri talii ayaa waswaas galaba ani waxaan ku qanci karaa dadkii oo walaalkii dilay in la qasqaso anoo arkayo dii wax aan u baahanahay ma jirto waa iska lacag mal adduunyo mar nafta walaalkayga aan waayay ninkii naftiisa oo gooyay in ii dilo ayaan ku qanacsanahay haddii dawlad cadaalad ay jirto halkan aad arkaysaan waa goobtii markaasi Allah u naxariistay marxuum Axmed Mukhtaar Dawlo shaqadiisa ay ahayd maalintii khamiista ay dhibaatada ku dhacaysay halkan ayuu nolol maalmeedkiisa iyo shaqadiisa ku guda jiray markaasi oo ay markaasi soo weerareen dadkii markaasi marxuumkaasi dilay oo iyaguna gurigooda aanan halkan ka fogeyn oo sida noogula sheegay geedkan ku aadan yahay dhala basiin baa habeen lagu soo tuuray warqadooyin baa la ii fardhiyay oo anjabaad ah وسلدقان جي دل بنزين هبين لو سوتور غاري غبتي cabdiqaadir maxamed nuur waxa uu ka mid yahay qoyskii uu ka baxay marxuum Axmed Dawlo waxa uu qabaa in ay cadaaladi u muuqato isla markaana ay ogaadeen in ay dawladii ka dambayso waxaan u jeedaa maanta dawladnimo ka muuqato sidaad arkaysiin waxa la yiraahdo cadaalad daro meesha way ka baxday shakhsiyaal wax sameeyay shakhsiyaadkan wax sameeyay wala gamisa anaga hadaan dhaafno waxaan dhaafeen dawladdan dhaafeen waxaan u dhaafeen gurigeedu dadkan mas'uul ka tahay nin shaqadiisa inagu ciyaarna cid rabta ma laha gurigan shalay dad ma lahayn dawlad ma lahayn maanta dawlad oo yeeshtay anaga dhan naga mas'uul ah war maanta ninkii dhagax am dhala sarto waxa la weydiinaa farmaajo maalinta qiyaamo maxaa u leeyahay qof dhan la gubay ma ku sabri karaan kaas maya madax qaranka ma ku sabri karto sidaad aragtaan hadda halkan waxa ku sugan maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka socodsa oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso gurigan aad aragtaana waa gurigii qoyskii ka baxay Allah u naxariistay Axmed Mukhtaar Axmed Dawlo waxaan u nimid inaan u tacsiyeeno qoyskii oo xaasaskii iyo Axmed aabihiis iyo walaalihiis baan soo aragnay sidaan uga xunnahayna aan u sheegnay falkaana runtii waa fal bini'aadanimadana ka baxsan qof bini'aadana in saas loo galana waxaan kaloo uga digaynaa cidda rabto inay cadaaladda inta tagto ama islaanta xiran waxaana loo sheegaya dad siyaasiyiin weliba xildhibaanaa inay tageen rabaan inay damiin ku soo daayaan taas ma aqbali doono mana aqbali karno waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarrayso ma jirto muddo 4 maalin oo meedkiisu yaalay isbitaalka Allah u naxariistay marxuum Axmed Mukhtaar Dawlo ayaa maalinimadii shalayta ahayd waxa lagu aasay qabuuraha barakaad ee ku yaala duleedka caasimadda Muqdisho waxaana aaskiisa ka qayb galay boqolaal shacab ah oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir kuwaasi oo qiireysnaa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable